موضوع كلنا وحنا قرنا وحير كلي maalin dhaweydna waan ka sii yara hadlay cod ahaan baan uga sii hadlay laakiin maanta ana si live waxaan jeclahay inaan mar labaad uga hadlo magaalada Dirdhaba inaan ka hadlo waxyaabo badan baa kalifaya anagu ujeedadeena horta hal daqiiqo hadaan ku horeysiiyo urur gooni anagu ololeynayna ma jiro cid aan gooni wax ugu rabna ma jiro oo laf gooni wax ugu rabno bb gooni wax ugu rabno cid kale gooni wax ugu rabno shacabka baan wax u rabnaa marka shacabka hadiye sheer ba inaan toosino oo ka muwaadin ahaan aan wax u sheegno kolba beelahadeena meesha naga jirto inaan tooshka ku qabanno waa mid xil naga saaran yahay cidii ka cadhona ka cadhooto cidii nagu qoonsan nagu qoosato cidii qoranaysa ee print garaysanaysa geesa badanaa walbayada qoraal way print garaysan jir hadda live baan ba ka dhignay nibci garelam marka magaalada Dirdhaba waa magaalo Soomaaliyeed waa la yaqaanay laakiin sanad ka dambeeya faraha Soomaalida way ka sii baxaysaa taa waxa sabab u ah waxaan wada soconin systemkeeni dawliga ahaa inay matalayay iyo shacabkeeni waxa jira marka kala daadsanaan badan baa jirta isku xidhnaan la'aan baa jirta maanta Dirdhaba hadaa tagto wax calaamad Soomaali oo inay Soomaali degan tahay aad ugu maleysay ma jiro nidaamkii hore ee BRDF taha xumaado laakiin nidaam wax loo qaybsanayay baa jira 40% Soomaali baa lahayd 40% waxa iska lahaa Oromo 20 kale qowmiyadaha kale iska lahaa maanta marka laakiin doorasho ba meesha ka socota abaabul baa ka socda Oromo xafadaheedii iyo wadankii dhan way wada xirxiratay caalanka onaag baa lagu wada sharaxay meel walba Amara sidoo kale meel walba caalankii kaniisada hore Ethiopia lagu wada sharaxay qabaliyada hadaa tagto kuyuga waxa ku jira waa Oromo iyo Xabasho oo isku leeynayo kuyuga isku riixaya hal shakhsi oo Soomaali oo mustawaqa qaadanay ma jiro haddana nidaamka noocaas meesha noocaas maanta waxa ka taliya ka aramiya waa Soomaali iyagu way fadhiyaan meelahan hoteeladu bishaha cabayaan dhibaatadoodu halka baa lagu gorfeynaya dhibaatadii laakiin faragelin ma jirto marka magaalada Dirdhaba waxaan leeyahay Soomaalida joogta shin ila idin haysato agagaarka kale idin haysato ka imaada magaalada imaada mustawaqaha qaata kuyuga gala kuwan shaaha meesha fadhiya ee hadalka uu gorfeynayo siyaasiyiinta damiir kale ee waxan qofka haduu mar arintii ka hadlayo ku baraarugsan yahay laakiin waxa loo baahan yahay ficil ififaalooyinkan hadda socda waa wixii doorashada ka horeeyay ififaalada hadda hadan ka qayb galin doorashadana ka qayb gali maysid hadhoon aan cali doona marka waxa loo baahan yahay ID-ga inay dadku qaataan Soomaalidu inta ka timaada halka inay mataqaanaa imaka Oromo maxay xog u saaraysaa Dirdhaba meelaha kale lagu ma haysto Xabasho waxay xog u saaraysaa meelaha kale lagu ma haysto marka magaaladii Dirdhaba maanta waad ka naxaysaa marka lagaaga sheekeeyo argagax baa ka qabsanaya wax calaamad Soomaaliya ka socota ma jiro marka waxaan leenahay si nabadgelyo ah markaan leenahay inaguna aan is abaabulno kama dhigna inaan leenahay aan dagaalano kama dhigna inaan leenahay rabshad sameeyno kuwaas cid abaabulaysa waa maamulka laakiin inagu maamul ma hayno xisbina ma hayno marka dadka ma farahan ka qaadnaa jabadaha ma gamcanta aan gamca gashana mar haddaan inta haynin waa aritaga group waan garab ordaynaa marka waxa loo baahan yahay inagu maamul maadaama inaan haynin cid mas'uula wax noo sheegtay maadaama inaan haynin la wada cabsanayo oo imaka ninka Oromadii intuu shir qabto oran dadkaygu haysa abaabulaan laakiin ninka Soomaaliga ma oran kara ifay ma garan karno maanta oo lafna ma taqaanaa waata nabad bay qaadatay laakiin haddana still boogta waxa boogtan baasalina xoqayoon ee inta la ina xoqo qofkii ku hor ordayo ruuxi ku hor socdo waxa arkaysaa uu soo jireeyay sida awrka oo ma taqaanaa jidka u banaan baa inuu ku jiro aad ka cabsani marka boogtan lafteeda ayaa u baahan daraasad kale in lagu sameeyo oo qofkii si kasta haduu damiirkiisa u fiicnaa kursiga madow markuu ku fadhiisto isbedelaya marka waxaan leeyahay topic hadaan ku soo noqdo war magaalada Dirdhaba Soomaaliyeed intaad ka kacdaan fadhiga kuwa shaah iska cabaya siyaasiyiinta waxan dareensan odayaasha dhamaan inta isku guntataan magaalada Dirdhaba tartankeeda ka qayb galno ID-ga hal la qaato calaamadaheena calankeena kililkan ku dhajisan hadaan doonno kilil beenahay waa in meesha inay Soomaali degan tahay ka muuqato maanta Dirdhaba waxa ka socda waad aragtaa meel kasta shirar baa ka socda Oromo way sababuleysaa wax garab socdo ma jiro marka mawduuca Dirdhaba waa mawduuc runtii aad iyo aad u wanaagsan waxaan jeclahay inaan kula dardaarmo dadka Soomaalida war in wax la sheego kaliya ta muhiim ma aha wax sheegu waa baraarujin marka aan fadhiga ka kacno magaaladii Dirdhaba kaalinteena iyo doorkeena ganacsatada aan ka ciyaarno dadka agagaarka degan city kuwa jooga war ka imaada agagaarka magaalada kuwa degan ee Soomaalida laftoodii baan muuqanin idinkuna muuqdo kuyuga gala maamulka Dirdhaba
Soomaali baa gacanta ku haysa berri muxuu xukumi hadduu daawado maanta ololahan socda iyo qaabkan socda iska daawado berri muxuu xukumi doonaa waxa loo baahan yahay dadkan cid abaabulaysa ama hay ismuujiyaan ama yana ismuujin waa maamulka marka waxa loo baahan yahay inaga waxaan jirin driving force dadkan cidii abaabul lahayd xagga dambe ka taagneed baan jirin kiiba gabanaya kii shacabkana uu gabanaya marka ka mas'uulka iska gabado oo kursigiisa ha ilaashade inaga xabada ka gaban karna iyo baluux isaw ka cabsanaye waxa isaw ka cabsaday inagu aan aragna wax laga cabsaday ma jire maanta wadanku waa xor warama hadii sababishay way sababili wada hadday xirtay wadad xidhani waad u jawaabi adna lahaanshay wadanku maanta waxaad moodaa in wada la xidhi isugu jawaabayo xabashidu markay banaan baxdo orama banaan bix xabashidu markay wada xidho orama wada xidhi inaguna waxa weeyaan haduu waxa wadanka ka socda uma ka qayb galinaa nabadii aan ahayn waxaan ahayn boolis qawadsiya maanta waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaalidii la oran jiray Ethiopian ma aha iyo waa kan wax Ethiopia maanta ilaalinaya Soomaali baa jirta marka Ethiopia ila shabaha la ilaalinayno dawaan xuquuqdeena aan ka helno kuyuga marka aan la galno hadii layna garbiyo waan garbinaynaa laynaga ma xog badna marka waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaali magaalada Dirdhaba isu istaagto sida iyo nabadgelyo